بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتهاي مركور وحن أمهد علينا يا بهذا SNTV دمان هالودينا ذوذا ورياشة كاميرا معنا ذا دمان وما سنتين runtii faa'iidooyinka ay u leedahay Soomaaliya in ay kamid noqoto golaha amaanka qaramada midoobay faa'iidooyin yar ma ahan laakiin waxa ugu yar oo dhowrka xabo aan hal iyo laba ka dhihi karno waxa kamid ah su'aalahan kursigaasi waa kuraasta su'aalahan Soomaaliya loogu arriminayay laga soo bilaabo 93 markii dalka Soomaaliya la geliyay Chapter 7 marka meeshii lagaga arriminayay cunaqabateynta hubka nagala saaray maxalli jiray ciidamada loogu soo dirayay intaan qayb ka noqono aan meeshii fariisano oo aan u doodno nafsadeena wixii noo interestigeena oo danaha aan leenahay aan ka jeedino waa faa'iido aad u weyn waa faa'iidooyin ugu yar intaas waxa ka sii badan oo faa'iido ay noo tahay inaan ka raadsano maxalli jiray waxyaabaha ay ka mid ka tahay regionka aan ka tirsanahay inaan xuquuqdiisa u doodno sidii nabadda kor loogu qaadi lahaa aan u taageerno golihii ugu jeedino inaan saaxiibo runtii badan aan ku yeelano ku kasbano in dawladaha anagana la midka ee dhibka soo maray oo ama dhibka maraya hadda dhibku ku jiro inaan macnaha aan u doodi karno oo aan ka shaqeyn karno in laga qaado dhibta laga qaado wax la soo koobi kara maahan dhan dhaqaale ugu faa'iideysan karnaa oo meelaha lagu qaybinayo dhaqaale lagu qaybinayo waaye argagixisada dalkeena haraadisay meelaha runtii lagu la diray qayb ka tahay marka wax la koobi kara maahan laakiin waxyaabaha ugu yaro runtii aan isleeyahay si quick ah ayaa loo sheergaray karaa ama si fudud intaas ka mid ah marka kaalinta guushan ay ku leeyihiin shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad jooga maxay tahay shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad meesha joogaanba waxay ahaayeen ambassadors dawladooda ay garab taagnaayeen way ku taageerayeen wasaaradooda arrimaha dibadda ay garab taagnaayeen way ku taageerayeen shacabka waaba kaalinta muhiimka ah waxa wax qabanaya iyaga ah qof kastoo dawladda kamid ah maalin oo shacab ahaa oo shacab dhanka shacabka jiray xilka markuu ka tagana shacab uu noqonaa marka shacabka Soomaaliyeed isku duub iyaga guushan iska leh iyaga laha iyaga maxalli jiray ka shaqeynay magacooda lagu shaqeynay hadaysan dhaqaalaha dhiibi lahayn oo cashuurta bixi lahayn oo aysan igma lahayn madaxda hawsha qabanayso wax la gaari lahaa ma leh marka shacabka laf dhabar ay u ahaayeen guushan hadda marka maxaa la gudboon bulshada Soomaaliyeed si ay dawladooda ugu garab istaagaan gurtigan iyo howlaha soo socda bulshada Soomaaliyeed garab istaagay shalay muujiyeen mid kamid ah oo laba laaban ayaa laga doonayaa guul marka la hadlo la gaaro waxay u baahan tahay hanasho waxay u baahan tahay garab istaag shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan rajaynaynaa in dawladooda ay garab istaagaan in ay ku garab istaagaan dhammaan waxyaabaha hadda ugu horeyso oo macnaha muhiimka oo in la sheego u baahan waxa kamid ah shacabka Soomaaliyeed sanadkan hadda aan ku jirno waxa bilaabo doono oo dhulka Soomaaliyeed qayb kamid ah bilaabo doono qof iyo cod hal jireen taas u diyaar garoobaan ay u codeeyaan dadka ay rabaan inay soo saaraan oo ay u dhiiba karaan qof adiga kula mid ah oo aad isleedahay uu ku matali karaa inay xililkooda u dhiibtaan oo ay ka shaqeeyaan golaha deegaanadii ay ka shaqeeyaan oo dawladihii hoose laga shaqeeyo qaabkii doorashadaas looga qayb qaadan lahaa waa muhiimad number 1 sidoo kale waxa muhiim ah inay u diyaar garoobaan 2026 oo aan UN Security Council-ka madaxweyne ka noqon doono inay u diyaar garoobaan iyadana in ay ka qayb qaataan doorashada qof iyo codka oo dhici doonta xilligaas waxa la mid ah waxyaabaha looga baahan yahay isku duubni haddaan la isku duubnaanin oo shacabka aysan midaysnaanin oo hal noqonin way adkaanaysaa in caqabadaha laga gudbo sidoo kale amniga oo runtii garab istaaga ay ugu horeysa garab istaaga ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan ama ka shaqar noqdo booliis wadooyinka noo waardiyeeyo ama nabad sugid xuuraan samayso ama ha noqdo military jooga furumaha dagaalka ku jiro garab istaaga shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay guud ahaan isku duubnida deeqdo dalkeena waa deeqa waa naga badan yahay khayraadka jooga naga badan kuraasta waxay noqon kartaa hal iyo labo waxa ku fariisan kara hal qof uu noqon kara laakiin waxana deeqdo waa cadaalad waarto waa isku duubni cadawgeena iyo cidana la damacsan jabkana waxa uu gudbi karnaa anagoo isku duuban shacabkana taasaan ka rajaynaynaa ka codsanaynaa ka baryaynaa aan weydiisanaynaa in dawladooda ay ku garab istaagaan